Assalaamu calaykum daawadayaal. Waa barnaamijaynu ku dul istaagi doono aqoon darrada bulsho iyo wajiyadeeda kala gedisan ee ay leedahay. Waxaan filayaa inaan wuxuun ka faa'iidi doono muuqaalkan. Soo dhawaada. Aqoon darrada aan tirmin waxa laga wariyaa filosoofkii Scottish haddii aanan magaciisa si qaldan ugu dhawaaqaynin hadal caan baxay oo ahaa waxa kaliya ee aan ogahay waa in aanan waxba aqoonin. Waa hadal ugu quus goynayo sheegashada aqoonta oo sheegashada lafteedu ay tahay salka aqoon darrada. Waxa kale oo laga hayaa naftaada isbar. Waxa kale oo aaminsanaa in ay tahay aqoontu wax lagu hirto tahayna aqoon darradu liidasho iyo hoosayn. Falsafadyahankii kale ee Baltunin waxa kale waxa uu aqoon darrada u arkayay in ay sees u tahay xumaan oo dhan. Filosofiyadan dabadood ama filosofiyadan gadaashood falsafadyahanna badan ayaa isku dayay in ay qeexaan aqoon darrada qaybaheeda ableeyaan oo ay kala soocaan nuucyadeeda kala duwan waxa kale oo ay isku dayeen inay xadidaan oo ay soohdin u yeelaan saamaynta aqoon darrada bulsho iyo siyaasadeed. Waxayna bedka keeneen ama ay soo bandhigeen qaababka ay bulshadu uga takhalusi karto aqoon darrada ugana fogaan karto bulshadu raadadka xun ee aqoon darradu ay nolosha ku leedahay. Daraasaadyo badan oo ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in aqoon darrada sababteeda ugu weyn tahay wax akhris la'aanta iyo wax qorid la'aanta. Dadkuna aanay xiise u qabin inay aqoon kororsadaan. Maskax xidhnaanta bulshada iyo qaadashada aaminaado khaldan ama fikirro khaldan oo dadku ay iska aaminaan oo aan laga baaraan degin sababahan kasekow. Waxa jiri karta aqoon darro si ku talagal ah bulshada dhexdeeda loogu abuuray looguna dhex baahiyey iyada oo looga dan leeyahay gaadhida yoolal gooni ah iyo ujeedooyin gaar ah sida kuwa ganacsi. Qaababkan dambe waxay ku suuroobi karaan iyada oo dhinacyada qaar ay u bareeraan minta ama ka takhalusida ra'yiga guud ee bulsho sidaana loo dejisto habab iyo jidad lagu gaadhayo yoolka gaarka ah iyo danta markaa la rabo in bulsho laga dhex fuliyo. Aqoonyahankii reer Ingiriis ee Peter giisa aqoon darrada sooyaalkeega iyo xagal caalami ah waxa uu aaminsan yahay in aqoon la'aanta ka dhalata wacyi la'aantu aanay mudnayn baadhid iyo u kuurgalid midna. Aqoon darrada la faafiyaa ay tahay ta u baahan baadhitaan iyo daraasayn. Waxa uu buuggiisa ku qaadaa dhigayaa aqoon darrada noocan ah iyo saamaynta ka dhalata iyo dhibta ay keento. Waxa uu dib u raacayaa sooyaalka dheer ee aqoon darrada waxaana uu daraasaynayaa saamayno ay yeelatay xilliyo kala duwan. Aqoon darrada sida badheerka ah bulsho loogu dhex baahiyaa. Carabtu muddadii islaamka ka horreysay waxa ay u yaqaanaan xilligii jaahiliga. Dadka kalena waxay qarniyadii dhexe u yaqaaneen qarniyadii mugdiga. Xilligii baraaruga aqoon la'aanta waxa loo arki jiray seeskii keligii talisnimada, aaminaadda indhabeelnimada ku dhisan iyo khuraafaadka. Waana waxyaabaha la rabay in laga takhaluso casrigii fikirka iyo maangalnimada. William Beveridge wuxuu aqoon la'aanta ku tirin jiray 5 waxyaabood ee halista ku ah jiritaanka aadamaha. 5taas oo kala ah aqoon darrada, saboolnimada, cudurrada, musuqmaasuqa iyo shaqo la'aanta. Xilligeennan innagoo aynu noolahay waxa dunida ka jira aqoon u gaar ah oo lagu daraaseeyo jahliga iyo dhaqamada keena aqoon darrada. Agnotology waxa la daraaseeyaa hababka kala duwan ee loo abuuro marin habaabinta iyo aqoon darrada bulsho loona faafiyo. Tani waxa ay ka dhigan tahay in aqoon darradu aanay meel cidla ah ku samaysmin si saamayno bulsho iyo mid siyaasadeed ay leedahay. Aqoontani waa hab lagu baadho sida loo abuuro aqoon darrada habab kala duwanna loogu faafiyo iyada oo looga dan leeyahay gacan ku dhigidda masiir bulsho iyo awooddeeda. Aqoon darrada waxa lagu faafin karaa iyaga oo la baahiyo xogo u eeg aqoon si marin habaabin ah lana dhex mariyo warbaahinta iyo dhuumaha kale ee nidaamyada siyaasadeed ee shirkadaha waaweyni waxay dhex marsadaan. Faafinta aqoon darradu waxay kaalin weyn ka qaadatay guusha waxyaalo badan oo marar kala duwan la soo saaray. Waa qaybtii labaad ee barnaamijkeennii ku saabsanaa
aqoon darrada bulsho. Sababtoo ah aqoon darradu waa agab awood leh oo aan la jabin ilaa la lafaguro nidaamyada iyo dhuumaha aqoon darrada baahiya, ra'yiga guudna luminaya oo la dabagalo istiraatiijiyadaha marin habaabinta. Waxaa kale oo lagu loodin karaa shakigelinta kalsoonida arrimaha ay sheegayaan jihooyin cayiman, ukuurgalka wararkooga iyo ilaalinta warbaahinta u bareeraysa luminta wacyiga dadka. Sida cad, fahanka iyo daraasaynta lagu sameeyey aqoon darrada lafteeda iyo sida loogu kuurgalay laguma bixinin aqoonta lafteeda qarniyo badan. Si gaar ahna wixii ka dambeeyey qarnigii 18aad, jahliga waxa lagu sameeyey daraasaadyo xeel dheer oo lagu lafagurayay. Waxa ay soo bandhigeen in si qoto dheer looga fikiro waxa aqoon darrada lagu tilmaami karo, iyo in si gaar ah loo tixgeliyo kala duwanaanshaha goobaha iyo xilliyada. Sidaas darteed, waa inaynu marka hore ka baaraan degno ama aynu ku baraarugno ama aynu u ogaal yeelanno ka hor inta aynaan dhaqan ama xilli bulsha ay noolayd jahli ku tilmaamin. Casrigan aynu joogno, dadku waxay waxbarashada ka dhigteen jidka ay ku hagaajiyaan noloshooda iyo inay meeqaam sare oo bulshada dhexdeeda ah ku helaan. Sidaasoo ay tahayna waxay iska indhatiraan asalka aqoonta iyo shaqadeeda, oo dadkaasi weli waxa ay ku raadaysan yihiin dhinacyada kala duwan ee nolosha. Dadkaasi waxay u dabran yihiin dhaqamo iyo fikrado khaldan oo soo jireen ah. Aqoontu waa seeska horumarka bulshada, qofkana waxa ay ku kaalmaysaa in uu yeesho qayim wax badan oo wanaagsan uu ku qabsan karo, horumar dhaqaale iyo bulshana uu ku samayn karo. Aqoontu waxay qofka u xoraysaa maankiisa, waxaana ay qofka siisaa awood uu si madax bannaan ugu fikiri karo uguna dhaqmi karo. Qofku waxa uu kala sooci karaa xaqiiqada iyo mala awaalka aan sal iyo raadka lahayn. Intaaba lidkeed, aqoon darradu waxay qofka ka tirtaa awoodda go'aan qaadasho iyo inuu si madax bannaan qofku u dhaqmo, oo horumarkiisa iyo horu socodkiisa ayay caqabad ku noqotaa. Waxaa jira waxyaalo badan oo tusaale u ah aqoon darrada oo iminka bulshooyinka ku dhex faafta. Waxaa ka mid ah isla dhexmaridda wararka beenta ah iyo waxa aan sal iyo raadka lahayn ee bulshooyinku ay qaadaa dhigaan. Ma cusba in warar been ah la faafiyo, oo waa wax qarniyo soo jiray in la faafiyo wararkaasi, waxayna kor u qaadaa isfahan waaga bulsho iyo kala daadsanaanteeda. Waxayna sababtaa in la qaado tallaabooyin qaldan. War been ah oo la faafiyey oo qof rumaystay ayaa sababi kara inuu qofkaasi qaado tallaabooyin aan habboonayn oo natiijooyin qaldan kaga soo noqdaan. Wararka hadda taagan ee la soo qaadan karo waxaa ka mid ah sida isbeddelka cimilada oo kale. Waxyaabaha aqoonta wax ka beddelay waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqa dumarnimada. Muddooyinkii hore, raggu waxay iska dhagamarin jireen aqoonta dumarka oo kalsooni kumay qabin aqoon dumar, oo wixii aan raggu aqoon may aqoonsanayn ama aqoon umay haysan. Waddamada Yurubta bilowgii casriga cusub waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo dhiirigeliya in aan dumarka waxyaabaha qaarkood la barin. Aqoon-yahanada anthropology-ga laftoodu muhiimad may siinin kaalintii ay dumarku ku lahaayeen dhaqamo iyo xadaarado badan oo dunida soo jiray. Kadib dumar ku biiray majaalka anthropology-ga ayaa galdaloolooyinkiina buuxiyey. Maria Reiter oo ahayd aqoon-yahanada anthropology-ga ah ayaa ku dooday in raggu iska dhagatiray kaalintii ay dumarku ku lahaayeen samaysanka sooyaalka, iyaga oo ahaa boqorado, aqoon-yahano iyo qaybaha kale ee kala duwan ee bulshadu ay leedahay. Buugga Peter Burke waxa uu ku soo beegmay xilli loo yaqaanay xilligii xogta, oo aanay aqoontu ku koobnayn uun tabaqada sare ee bulshada oo keliya ee ay cid waliba aqoonta heli karto. Arrinkan laftiisu waa wax u baahan u fiirsasho iyo dhabagal. Waxa aqoon ama xigmad la odhan karaa waa nisbi ku xidhan xilliga iyo goobta la joogo markaa. Waa xilli ay aad u faaftay aqoonta khaldan ee la baahiyaa, aaminaadaha aan salka lahayn iyo wararka beenta ah iyo xaqiiqa iska indhatirka qofku doorto. Aqoon darradu mararka qaar waa ikhtiyaar qofku doorto oo ah teed ama derbi uu iskaga xijaabo inuu qofku ogaado waxa saxda ah, isaga oo qofku iska dhaadhicinaya in aanu waxaasi waafaqsanayn aaminaadihiisa iyo ideolojiyadiisa uu ku qanacsan yahay. Sidaas darteed, jahligu markan waa teed qofku iskaga qabto inuu wax cusub ogaado. Wabillahi tawfiiq.